halkan waxaan ka duubaynaa maanta Imaaraadka Carabta waxay soo qoreen Soomaalidu waxay ilowday lacagihii aan abaaraha siinay marka waxaan leenahay dalka Imaaraadku wuxuu iloobay oo dhumiyay shala markay masaakiinta ahaayeen aan waxba haysan khayraadkii iyo lacagihii iyo xoolaha iyaga aan siinaynay bay iloobeen ayagu ha ka fiirsadeen arrinta waxaan kale u jeedinayaa dawladda Soomaaliya oo sharafta leh oo dalkeeda ka qabatay kontrabanka aan qiimaha lahayn ku sii dhiirada oo qabta kontrabanka Imaaraadku wado oo mar dambe aysan dalka naga soo galin taasaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeedna waxaan u leenahay dawladdiina taageero dawlad baad maanta haysataane lacagahaas la idinku duminaya Imaaraadku bixinayo iyo dhaqaalaha ay bixinayaan dawladdiina waa diiday ciidan sharaf leh oo Soomaaliyeed oo lahaansho ku doodaya oo waxaan boorso inaysan dalkooda aysan siisan rabaana maanta waa leedihiin shacabka Soomaaliyeed oo kaca oo dawladda xunta oo maamul goboleedka iyaga leeg oo Imaaraadka ka hor imaada xiriirkana loo gooyo taasaan u sheegaya ummadda Soomaaliyeed okay awaane maxaad ugu jawaabtay kilibkii markay soo aad ku aragtay baraha bulshada ay dhahaan Soomaaliya waxay ilowday lacagtii abaaraha maxaa ugu jawaabtay waxaan ugu jawaabay horta inaan ciidan leenahay baan aqoonsada Soomaaliyeed ciidanka Soomaaliyeed gabayga aan u jeediyaan uga jawaabay waxaan xilli 11 ah korneelkaana tababaro amarkiisu kulul yahay kaca markuu dhaho koorsada dhibowga waxaan ugu kabiixinahay kucleeyo kalba geesu jeensiya kucleeyo waxaan orod kaymaha ku marayaa ilaa kowda doornimo askariga korsaarka inaan idinka kaafino shacabkuna uu soo koro calankuna koreeyo kuwaan haatan dhalan wali kayfiyad ku gaaraan kuleelkiya qabowga waxa kabaha noo xiran tuutaha korkayga ugu talay kumbooshko kibisayda ii raday inuu shacabku soo koro calankuna koreeyo kuwaan haatan dhalan wali kayfiyad ku gaaraan waxaan meesha kululiya buuraha korkooda iyo kaymaha u maraynaa dad la soo kireeyay cilla keenay maahina dalka ku walahaanay kaartada qabiilkiyo kooxa qolo u joogiya koobi gaar maahina kuway wada lahaanshuhu isku keentay baana karti waxaan u leenahay haddii koomka aan baro Axmed Guray ku yiri gumaysiga ka kaca oo iyaguna karbaasho guusha keenay baana ingiriiski koomkan kaligiis gumaysaba ku diiday baana kooxda Israa'iil oo gumaysaha karbaashiya waxaan nahay kacaankii dadka heerka koro iyo kalsoonida siiyo Afrikada kurkeediya naga dhigay korneylada karti waxaan u leenahay haddii koomka aan baro kuubiya Itoobiya kumaan ruushku kaliya kuubiya Itoobiya iyo kuman kale kale intaasoo iskaashaday kuwii laga horgeeyo ka adkaaday baan nahay kulayl iyo dab baan nahay madfac kayn tushaan nahay kaariya mas baan nahay marna kabaha shacabka waxaan nahay kalkaashaha kursi lagu gamaanahay waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ciidankoodan hambaliyo uga dhigay ciidanka lacagta u sagaa qabtay baan hambaliyo gabayga uga dhigayaa inay dalkoodana shacabka Soomaaliyeed ciidankooda iyo dalkooda ku dhiiradaan oo ciidanka garab istaagaan baan u sheegayaa Imaaraadna wuxuu ilooba markuusan dawladda ahayn oo burbursanaa lacag aan siinaynay buu ilooba shala magan buu markaan anagu aragayaga iyo lacagaha yaga aan siinaynay anagu aanu baantana uma baahaninba xiriirka uu noo jaraya muxuu yahay anaga amar hore xiriirka u jarnay warmad soo saarayna qabtaan okay ma sha Allah aad iyo aad mastaban jeelani markaan waxa warsanay Cabdullaahi Kusadow nawaanka gabay qeyraba ma soo jeediyay ka waran waxa ugu hambalyansa ciidanka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim horta baanku aad u maasan yahay maadaama gabay qeyra la uga shaqo tiriyay waxaan leeyahay ciidanka Soomaaliyeed hadda jeer ku guuleystaan maadaama lacagtaas la wada ogeyn inta ay ku rogal ceynay inay wax ka qaataan haddana saasay tahay bangiga dhexe Soomaaliya aad iyo aad baan ciidanka u taageereynaa waxaan leenahay Soomaaliya meel walba ay joogaan waa inay ciidanka taageeraan kuwa hil iyo hoob oo la taagan meel walba ay joogaanba shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay dawladda Soomaaliya ha israacdo ha noolaato ciidanka qaranka Soomaaliya ha noolaadeen hambaliyo ugu hambaliyeen abwaanka gabiga qeydada lahaa insha Allah waa gaaray hal shargeeyo hal gaarsiiyo waxa weeye